السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن loo wada socno wiigagii ugu dambeeyey imika ama wiigan ugu dambeeyey waxaa lasoo sheegay virus cusub oo ka mid ah coronaviruskii dunida saameeyey inuu Ingiriiska lagu arkay. taasina waxay sababtay in Ingiriiska wadamo badan oo European ama dhammaan midowga Yurub 27 wadan ee ku jirayba inay ka xidhaan albaabada Ingiriiska oo guud ahaan la kansalo flightadii oo dhan. waxaa sidoo kale uu saameyn ku yeeshay cuntada iyo waxyaabihii faraha badnaa ee Ingiriiska uga soo degi jiray dhinaca Faransa ka soo geli jiray. waxaynu isku daynaa caawo bal inaynu wax ka nidhaaho warwarkan faraha badan leh iyo sababta wadamadan Yurub ay albaabada ka xidhaan Ingiriiska ama xuduudahooda ka xidhaan iyo viruskan cusub ee hadda soo baxay waxa uu yahay waxa uu kaga duwan yahay viruskii hore jiray. haddaan ku horeeyo sideedaba horta virusyadu guud ahaan 90% virusyadu way isbedelaan oo ma jiro virus sidii uu ku dhashay ahaada weligii oo ku jooga. isbedelku waa qayb noloshooda ka mid ah. sababta koowaad ee virusku isu bedelaa waxa weeye maadaama uu tarmayo xad dhaafan uu ku tarmayo daqiiqadii uu labanlaamayo saacadii laga yaabo inay xabadii viruska ahayd ee originkeedii ay ka tarmaan ku dhawaad 1 milyan oo kale virus. taranka faraha badan wuxuu keenayaa isbedel maadaama ay noloshiisu kooban tahay oo virusku xitaa hadduu jirka dibadiisa joogana saacado ayuu noolaan karaa. hadduu jirka gudihiisa ku jirana in muddo ah oo aan dee maalmo ka badnayn buu noolaan karaa xabadda viruskii. laakiin si uu dee u sii jiro oo aanu virusku hawada uga bixin waa inuu tarmo oo magaranaysa dhalo. marka mid baa laga yaabaa 5 casho noolaanaya 100 buu dhalayaa 100kii haddana 5 kale sii noolaanayaan. dee meesha kaliya uu ku tarmi karo uu ku noolaan karaa waxa weeye qofka unugyadiisa inuu dhex galo ama cellskiisa inuu dhex galo. marka cellskuna ama unugyada qofka bilaadankaana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu sameeyay gate ama dee wareeg wax dahaar ku dahaaran oo dahaarkaas markaa wuxuu ka celinayaa waxyaabihii dee dibadda ka imanaya oo dhan ee aan unugan ka mid ahayn si aanay khalkhal u gelinin ama membrane-kan ku xidhan unug kastoo qofka bilaadanka jirkiisa ka mid ah viruska wuu iska celinaya oo virusku markaa waa inuu helo dariiqo uu ku galo unuga gudihiisa. marka unugan gudihiisa si uu u galo waa inuu structure-kiisa bedelo. marka virusku markuu isbedelo inta badan saameyn kuma yeelato oo wax badan kama duwanaado kii uu markiisii hore ka yimi. tusaale ahaan oo kale imika viruskan coronavirusku wuxuu kasoo bilaabmay markiisii hore China ama gobolka Wuhan loo yaqaano. Wuhan markii uu kasoo bilaabmay wuu isbedelay oo imika tusaale ahaan oo kale viruskan Europe ku jiray iyo ka America ku jiray galay America labaduba way ka duwanaayeen kii originka ahaa ee kasoo bilaabmay China oo wuu isbedelay. tusaale ahaan waxaa la yidhahaa imika kan cusub ee ama Europe kan ka bilaabmay isbedelkiisa koowaad Italy buu kasoo bilaabmay oo Italy markuu virusku marayay wuxuu isu bedelay already nooc cusub. markii hore warwar buu ka laftiisu keenay oo waxa laga warwar qabay in viruska cusub ee Italy ka dhashay waa sanadkan 2020 bilowgiisii inuu noqon doono mid ka khatar badan kii hore ee China kasoo bilaabmay ama khatar liita lafteedu waa la saadaalinayay. laakiin markii data ku filan la helay si isbarbardhig loo sameeyo waxa soo baxday inaanay wax badan ku kala duwanayn. haddaba imika warwarkan jira xilligan waxaa laga baqayaa waxa weeyaan ilaa hadda inta la xaqiijiyey dhimashadu waa isku mid oo viruskii hore ama versionkii hore coronaviruskii kan cusub ee imika la leeyahay Ingiriiska laga helay dhimasho ahaan ma kala badna oo waxba isbedel weyn kuma iman oo la taaban karaa dhimashadii dadka dhimanaya xanuunkan. dadka hospitalka u baahanaya ee ICU iyo intensive care unitska u baahanaya laftoodana xadigoodii iyo tiradoodii wax badan iska bedeleen. laakiin ilaa hadda waxa la xaqiijiyay wax iska bedelan waxa weeye rate-ka macnaha infection rate-ka oo inta qof uu infect garanayo per day per week ma garanaysa numberka aad u fara badan. marka warwarka kale labaad ee jira waxa weeyaan ciyaalka laga baqayaa inuu si easy u infect garan karo carruurta yar iskuulada jooga aad ugu dhex faafeen ama khatarta uu ciyaalka ku hayay iyo xanuunka ayagu ay dareemayaan muu badnayn oo ciyaalka xitaa hadduu ku dhaco qof yar uu ku ahaan jiray. waxa laga baqayaa viruskan cusubi inuu xitaa ciyaalka infection rate-kiisu ka bato. taasina waxay ku si khatar badanaysaa maadaama ciyaalku aanay social distancing samayn karayn oo ay hosteskaga wada jiraan oo iskuulada isu tagayaan. haddii uu noqdo viruskan cusubi mid ciyaalka ku fidi kara waxay noqonaysaa markaa inuu ka khatar bato kii kale. waa ciyaalku dee iskuuladii oo dhan baa furan marka iskuuladii si waali ugu dhex faafi doonaa. marka qof kasta oo iskuulka tagaana gurigoodii uu geyn doonaa taasi dadkii waaweynaa bay usii gudbin doontaa. marka imika lama hubo laakiin warwarka jira ee wadamada xuduudahooda u xidhanayaan ee looga baqayo qaybtan cusub waxa weeyaan macnaha informationka aan laga hayn inuu ciyaalka wax yeeli doono inuu magaranaysa ku dhex faafi doono si easily ayaga dhexdooda. marka waxa dhici karta inaanay sidii aan idin sheegeen hore idin kusoo sheegay maadaama kii hore kasoo bilaabmay China markuu Europe soo galay isbedelay
xagga dhimashada iyo xagga faafitaanka iyo xagga waxyeeladana aanay wax badan iska bedelin oo ay isku mid u ahaayeen. waxaa dhici karta kan imika ingiriiska lagu sheegayna wiigaga soo socda imika in marka la helo data ama number dadahoo ku filan in isbarbardhig la sameeyo markuu infect gareeyo in la isbarbardhiga isaga iyo kii hore u jiray marka inaanay wax weyn kasoo bixin baa dhici karta oo la yidhaaho kii hore unbuu la mid yahay structurekiisi wuu bedelay oo qaabkiisi iyo shakli ahaan iyo dhisma ahaan uu ka duwan yahay viruskii hore waddanka joogay laakiin waxyeelo ahaan iyo infection rateka iyo xaddiga uu ku tarmayo iyo xaddiga uu dadka ku infect garaynayo intaba inaan waxba iska bedelin oo kii hore un iskala mid yahay ama how deadly is macnaha inta qof uu dilayo ama dhibaato u geysanayo ama xanuunka dadku dareemayaan inaan wax badan iska bedelin. waxaa kaloo iyaduna suurtagal wadamadan Yurub ee imika xuduudahooda xidha inay xuduudaha furaan wiiga soo socda waayo imika warwarka ugu faraha badan waxaa keenaysa macluumaad la'aanta macluumaad fara badan lagama hayo viruskan cusub macnaha khatartiisa iyo dhibaatadiisa marka imika marka macluumaadkaas soo baxaan week la analyze gareeyo datada la hayo imika iyo tadambe iman doontaba wuxuun bay noqon doontaa inaan wax kii hore ka badisan oo badani aanay kasoo bixin sidaan anigu rajaynayo ama sida ifaala imika muuqdaa uu yahay. waxaan filayaa in weega soo socda wadamadaas ay furi doonaan xuduudahooda noloshu ay iskaga soo noqon doonto sidii markii hore